daawadayaal war degdeg ah oo hadda naga soo gaaraya markaasi dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu sheegaya in lagu dilay inta u dhaxaysa Caato iyo sidoo kale gobolka Boqol ee dalka Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in nin caan ah oo ururka Al-Shabaab ka tirsanaa oo dowladda dalka Mareykankana ay dul dhigtay lacag aad u fara badan markaasi lagu magacaabi jiray Fuad Maxamed Qalaf Shangole oo kamid ahaa ururka Al-Shabaab kana tirsanaa hogaamiyaasha ugu sarsare ayaa waxa lagu sheegay in duqeyn saaka dhacday oo ay fuliyeen ciidamada Itoobiya cirka in guud ahaanba lagu qaarijiyay inta u dhaxaysa Boqol iyo sidoo kale Caato oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo xuduud ah haddaba wararka haddana soo gaaray ay waxay sheegayaan in hogaamiyaal kale ay jiraan oo isaga la socotay oo aan wali magacyadooda la hadlin waxay dowlad deegaanka Soomaalida ku adkaysanayaan in uu jiro dhimashada hogaamiyahaasi sare ee ururka Al-Shabaab ka tirsan warar kale oo aan helena ayaa waxay sheegayaan in duqeyntii ugu badnayd ee ciidamada markaasi Itoobiya cirka ay sameeyeen ay ka dhacday inta u dhaxaysa xuduudda Soomaaliya sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay wadaagaan oo markaasi ah deegaanka Caato oo markaasi gobolka Boqol ka tirsan daawadayaal waxa xusud mudan in aysan wali Al-Shabaab arintaasi ka hadal oo bogogeeda ay maamusho sida Al-Kataib in aysan wax wara ku baahin oo ku saabsan dhimashada hogaamiyahaasi u muhiimka Al-Shabaab oo ay sheegeen ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale dowladda Itoobiya iskaashanaya in ay ku dhawaaqeen dilka hogaamiyahaasi haddaba hogaamiyaha Fuad Maxamed Qalaf Shangole ayaa lagu magacaabaa waa hogaamiyaasha ugu sarsareysa ee markaasi maamula ciidamada ugu faraha badan ee kooxda argagixisada Al-Shabaab ay maamulaan haddaba daawadayaal wararkii ugu dambeeyay waa intaasi waxaan kaloon xog ku helanaa in ciidamada Al-Shabaab weerarkii ay saaka soo qaadeen ay kala kulmeen jab aad u xoogan xogihii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in hogaamiyaashii ugu faraha badnaa ee la socday Shangole in halkaasi duqeymo ay markaasi ciidamada Itoobiya ku dileen daawadayaal warar kale oo aan helano ayaa waxay sheegayaan in dad shacab ay kula qaraxday miino inta u dhaxaysa Caato iyo sidoo kale Boqol oo ah xuduudda ay wadaagaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale dalka Soomaaliya fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabdiweli Nadaara YouTube-kana subscribe noo saartan page-kana follow iyo sidoo kale like waad ku mahadsantihiin